بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. داود إلياس ومحسن تهي إلياس هذا إذا عدى ركسا sida wanaagsan ee aad idaacadda iyo wanaaggeeda aad uga shaqaynaysaan iyo inaad xog fiican aad heshaan aad baan idinkaga mahadcelinayaa. awalan galabta waxaa ka dhacay shir odayaasha dhaqanka ah ee beelaha galmudug ayaa isugu yimid iyadoo xaaladdu runtii dowlad goboleedkaas dhisideeda muddo lagu jiray. dowladdaas runtii dhisitaankeedii waqti badan baa lagu bixiyey iyo juhdi badan. waxaa muuqatay in badan inay soo ifafaalo fiican in maaragtay ay soo gaartay. runtii baarlamaan baa la dhisay iyadoo xal weliba laga raadiyay dhinac walbaba. nimankan wadaadada ah ee ahlu sunna yani waxaa lagula galay heshiis compromise ah maaragtay 20 xubnood taasoo runtii loo arkayay inay xal tahay. waana runtii dad badan way soo dhaweeyeen. marka arrintiina waa la dhisay wixii ugu horeeya ee dowlad lagu unko oo ah baarlamaan. runtii baarlamaankaas waa 89 xubnood ee baarlamaanku waa lagu tartamay. Dr. Gacal baa ku guuleystay guddoomiyenimada. guddoomiye labaad kale baa ku xigay. koowaad iyo labaadna waxaa ku kala guuleystay laba qof oo gabadhi ay tahay. runtiina waxaan dhihi karaa aad baa loogu farxay maadaama hawshii la guda galay ee dowladnimada. taasna waxay keentay in wax badan ay soo dhawaadeen. marka kollayto bini'aadanku waa la isqabtaa ciladabaa yimid oo aan isdhihi karo oo guddi aduu 12 qof ah oo loo xil saaray nidaamka doorashada ee madaxweynenimada oo baarlamaanka dhexdiisa ah. taasna kollayto waa wax aan isdhihi karo wax la daaweyn karo marka si loo fiiriyo walow nidaamkii ka yimid dhankan sunna xoogaa xildhibaanadaas ay yani qalad dhacay si kastaba ha ku dhacee. runtii waxaan dhihi lahaa arrintaas caqabad bay ku noqotay horu socodkeedii. waana runtii aad baa waxaa loo baahnaa in laga wada fiirsado dhankii heshiiska galay ee ahlu sunna iyo dowladda iyada in la ixtiraamo heshiiskaas ayuu ahaa oo aad u qurux badnaa in la dhowro labada dhanba. runtiina dee taasna ma ina dhicin. waxaan leeyahay aan ugu baaqayaa dhanka ahlu sunna waa dad runtii wax badan soo qabtay u baahanna in maaragtay galmudug inay dhisantana ayaga diyaar bay ka yihiin oo daraf bay ka yihiin. dowladdiina wax badan bay juhdi ku bixisay. dadkii dhaqanka ahaana sidoo kale wax badan bay joogeen. ummadda reer galmudugna waxay diyaar u yihiin dhammaan inay dowlad inay u dhisanto. taasna runtii wadadeedii waa la hayaa. waxaan leeyahay oo aan usoo jeedinayaa nimankaas culimada ah ee ka socday 20kaas go-aanada ay qaateen runtii inay kasoo noqdaan wax qurux badan ma aha. waa wax laga fiican yahay. waa waxaan ku fiicneen xataa mucaahadada ama ballamada ama heshiisyada dhowristeeda diinta way aad bay u adag tahay. iska dhaafay qof dad muslimiin baynu nahay. gaalada markuu nabiga heshiis la galayay heshiiskooda uma bixin. wuxuu ahaa wuxuu ku adkaa. marka waxaa loo baahnaa in heshiiskaas maadaama soomaali dhexdeeda ay ka dhacday musaalaxa la wada galay. heshiiskana labada darafna waa heshiis baa lagu wada ahaa. wayna qurux badneed waa la soo wada dhaweeyey. waxaan leeyahay marka dhalinyarada matalayo dhanka baarlamaanka waxaan leeyahay arrinta ay ku dhaqaaqeen arrin
runtii fajaacisay ku noqotay ummadii oo dhan waxaan leeyahay galmudug arrintaas uma wanaagsana waxaa qurux badan inay dib uga noqdaan wixii ay ku dhaqaaqeen runtiina waa laga qurux badan yahay maadaama ay hawshu tahay hawl masiiri ah ummadan dowlad goboleedyada oo dhan ay ka hartay dowladana ay hab weyn u qabtay inay dowlad ka dhisanto runtii waxaan dhihi lahaa arrin laga fiican yahay oo aan dhihi karo inay wax badan dib u milicsadaan wixii taariikh la soo maray laakiin ahlu sunna cadaalad darro ayay tabanayaan sidoo kale arinta guddiga doorashada markii la sameynayay in hal meel oo keliya loo wada batay ahlu sunna marka iyadoo aan ka warqabin guddigaasi la doortay marka odayaashiina saxiixayaasha ah ma dhinaca dowladda federaalka ayaa aada u xagrinaysaan mise waxaad tihiin kuwa dhexdhexaadka ah arrimaha galmudug marka loo eego xaaladda xilligan jirta horta runtii Ilyas aan ku saxo horta runtii wax horta oo laba daraf oo maanta cadaalad darro ka dhacday horta ma jirto oo wixii lagu wada baa meesha yaalla waxaana u baahan tahay heshiiskaas si dhab ahaan in loo wada qaato dadku waa Soomaali luqado kala duwan kuma wada hadla hal xindaab ay ku wada jiraan baarlamaankii ahlu sunna gooni 20kooda gooni u taagna qoladan kale 69 kana gooni uma taagna waa dad Soomaali ah oo haddii ay isu abtirsadaan ay aad isugu dhow yihiin marka dad isfahmi kara weeyaan dad nolosha ay riixi karaan weeyaan marka ma dhihi karo qaladku haddii meesha hal mar xindaabkaas la soo wada galo sadbursi ma iman karto waxaa loo baahan yahay in mar walbaba lagu jangooyo waxa moogtahay sideedaba marka hawl idaari ah marka la galayo waxaa qurux badan in boqolkiiba inta qof uu ku leeyahay hadda anigu 5 xubnood baa la siiyey baa la yiri guddiga inta markii dhab ahaan haddii la xisaabtamana laba iyo xoogaa bay imaanaysaa 3 baa loo buuxin karaa laakiin maadaama 5 la siiyey inay ku qancaan oo walaalahooda weeyaan oo hawsha ay la wadaan waxaan wax la dhisayo weeyaan dowladnimo la dhisayaa yani marka waxaa loo baahan yahay arrinta noocaas ah inna daraf uma aha xaqiiqadan waxaa fiican in runta laga sheego barnaamijka gudihiisana waxa ka dhacayana maaha wax cadaalad darro gudoomiyay doon waa tahay heshiiskaas uu ku jiro oo hadda isku diidana ku-xigeenka isku diidana kan laba saddex isku diidana inay wada joogaan isku diidana marka waxa hadda nidaam wax yar socda oo maan kara in hadda khilaaf laga muujiyo anay dareen uma arko wax oo saas u sii fog waa wax ma aragtay la daawin karo waa marka xaqiiqda la abaaro laakiin kulankii aad yeelateen waxa uu u muuqday mid aad ahlu sunna hanjabaad aad ugu direyseen soo arrintu sidaas ma ahayn odayaashu haddee maadaama in badan ay joogeen oo qaarkood xubnihii la siiyey xalka loo adkeeyey ay looga qaaday oo sidaasna daawo looga yeelay in odayaashii marka ay wixii socon waayaan runtii waa dareen oo dalwanaanaya oo qofka inuu asagoo dhaqan ah wixii uu lahaa xaq u lahaa walow dadka iyaga naftooda darafka kale ay isla dadkii uu yihiin waxa la siinayo haddana xal baa loo arkay in wax ay isu soo dhadhawaadaan wax la kala cadgoosanayo meesha ma yaalin waa marka nidaam dawli ah la rabo ama nidaam maaragtay inuu hirgal laga rabo meeshan deegaankan xaqiiqadana waxa weeyaan hanjabaadaasna ma dhihi karno dhaqanku uma suubana laakiin waxaa dhici karta nin dhaqan ah oo saxiixa ah wixii laga qaaday iyadoo xal loo raadinayay xal lagu raadinayay markii haddana caqabad ay noqoto dadkii xal loogu raadinayay arrinta xoogaa waxay keenaysaa wejigabax iyo wax oo aan ku wanaagsanayn
dhaqankii iyo maaragtay dadkii heshiiska wada galay dowladdii iyo maxaan ku radaa ahlu sunna waxa wanaagsan mar walbaba in xoogga la saaro waxa ummadan anfacayo oo ah nidaam inuu hirgalo oo sal adag oo qurux badan oo dadku ay ku aloodaan xaqiiqda waa marka runta la sheego maanta deegaanadan aad rakiiq u tahay nolosha way ka kan tahay waxay u baahan tahay furfuris in la daaweeyo u baahan tahay wax badan oo wanaag ah in dowladnimada ku timaadaa haddii dowladnimadaas caqabad la hor dhigo waxaa imaanaysa noloshii meesheedii iyo meel ka fog bay tegaysaa si taas aynu u dhicin culamadii waa dad aqoon leh waa dad diin yaqaana bulshadii ku dhex mujtamaca ku dhex nool garashadooduna dee ma siinayso caqabad inay hog hayaan xildhibaanada ay soo doon ma aha dad juhala ah oo meesha la keensada ma aha waa dad wax garan kara aqoon leh oo runtii aan dhihi karo kuwa 69 waxba kama duwanaa laakiin baahi waxaan u wada qabnaa dhammaanteena dhaqankeena iyo ayaga iyo dowladda iyo dowladda dhexeba waxaan u wada qabnaa hamuun u qabnaa in meeshaas uu wax dhismo taasana ah daawada kale ee dadka ummadda oo dhan ay wada deeqi karto waa dowladnimo